indhahaan beele waxba ma arko waa leehagaa waan isku kacsaa waan wareegaa waan qayliyaa laamigaan taaganahay dadku ila yaaba waxaan raadinaa ciddayda in la igeeyo maryam sheekh maxamed haajib xagee degaan ciddayda jaratay degaan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو حنكسن دawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa roonimo khamiisa bisha November 24 sanada 2022 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah wadanka Eritrea oo garab siinaya deegaanka canfarta dagaalka ay kula jiraan Soomaalida isla markaana waxa wararka naga soo gaaraya deegaankaasi canfarta ay sheegeen ciidamo tiro badan oo soo dhaqay dhanka deegaanka canfarta ay soo gaareen deegaankaasi isla markaana ay doonayaan inay garab siiyaan kooxaha canfarta ay la dagaalamaya jabhadda Soomaalida ee difaaca galbeedka gobolka City xogihii ugu dambeeyay waliba dagaalada soconaya iyo wararkoodii ugu dambeeyay nigi doona iyo wadanka Djibouti oo arintaasi ka jawaabay. ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danab oo markii ugu horeysay ka hadlay howlgallada ay ka sameeyaan meelaha ay kooxaha argagixisada ah ku badan yihiin shabaabka iyo waliba qaabka ay argagixisadu uga tagto meelaha ay tagaan kadibna ay ugu soo laabtaan marka ay ciidamada militariga Soomaaliya ay halkaasi ku wareejiyeen xogihii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa iyo magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka daahfuray mashruuc ballaaran oo muddo dheer la sugay iyo hooyo Soomaaliyeed oo raadinaysa caruurteedii oo 25 sano ka hor ay ugu dambeysay. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay wararka naga soo gaadhay wadanka Itoobiya gaar ahaan deegaanka canfarta ayaa sheegay in ciidamo tiro badan oo ka socda wadanka Eritrea ay gaadheen deegaankaasi kuwaasi oo ka soo baxay meelo kamid ah deegaanka Tigreega waxaana ciidamadaasi la filayaa ama ay xoguhu tilmaamayaan inay ka qayb qaadanayaan dagaalada ka dhacaya galbeedka gobolka City kadib markii ay Soomaalida degan gobolkaasi ay ku dhawaaqday inay samaysatay jabhad difaacaysa isla markaana u diraysa sidii dib loogu soo celin lahaa gobollo iyo deegaano ka maqan galbeedka gobolka City. jabhadaasi oo bilowday howlgaladeeda ayaa la sheegay inay canfartu xilligan u muuqata in ay u babacdhigi la'dahay arrintaasina ay keentay ciidamada wadanka Eritrea oo markii hore ay dowladda Itoobiya ugu baaqday inay isaga baxaan waqooyiga wadanka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigreega ayaa haatan doonaya in ay bilaabaan mashruuc cusub oo halkaasi iyo galbeedka gobolka City laga hirgeliyo kaasi oo ay sheegayaan inay kula dagaalamayaan jabhadaasi difaaca galbeedka gobolka City. dowladda Eritrea waxay doonaysaa in ciidamadeedu ay ku sii sugnaadaan wadankaasi Itoobiya waxaana la sheegay in ay canfarta u yeeratay oo ay howlahaasi kala qayb qaadan doonto waa sida xogaha aan ku helayno isla markaana dadka deegaanka galbeedka gobolka City ay isla dhexmarayaan. jabhadda difaaca iyo xoreynta galbeedka gobolka City ayaa waxa ay sameynayeen labadii maalmood ee la soo dhaafay dhaqaaqyo xoog badan iyagoo dhawaan lagu dhawaaqay haddana waxa ay horeyba ka bilaabeen howlgaladooda kuwaasi oo ay ku beegsanayaan canfarta iyo waliba kooxaha la dagaalamaya oo kaliya. waxaa qaar ka mid ah kooxahaasi ay inoo sheegeen in ay guud ahaanba sida canfartaan yeelin iyagoo aan bartilmaameedsanaynin dumarka iyo caruurta balse cidda kaliya ay dagaalku kala dhaxeeyo ay tahay cidda la dagaalamaysa deegaanadoodana xoogga ku haysata waxaana ay sheegeen in ay rabaan oo kaliya inay weeraraan deegaano Soomaaliyeed oo ay canfartu xoog ku haysato dadka deegaankaasina ay la shaqeynayaan taasi oo u sahlaysa inay si fudud ula wareegaan deegaanada haatan ay gacanta ku hayaan canfartu iyadoo la sheegayba shalay in ay la wareegeen deegaan ay canfartu gacanta ku haysay dhowrkii sano ee la soo dhaafay sida xoguhu ay tilmaamayaan balse haatan haddii ay ku soo biireen ciidamada wadanka Eritrea ayaa la sheegayaa inay dhibaato xoog badan ay noqon doonto isla markaana halkaasi uu ka dhici doono dagaal xoog badan oo ay dad badan ku dhiman doonaan. arrintaasi ayaa looga digay in deegaanka Soomaalida iyo waliba deegaanada kale ee dalkaasi Itoobiya iyo dowladda federaalka ee Itoobiya inay ka hadlaan oo ciidamada wadanka Eritrea laga saaro dalkaasi Itoobiya walow dowladda Itoobiya ay sheegtay ama ay ku dhawaaqday in aanay garanayn waxa ay ka qabanayaan ciidamada wadanka Eritrea gudaha dalkaasi Itoobiya marba haddii heshiis ay gaadheen Tigreega iyo waliba dowladda Itoobiya balse arrinta ayaa u muuqata in dowladda Itoobiya ay awoodi leedahay in ay si dhab ah ugu sheegto ciidamada wadankaasi Eritrea waliba madaxweyne Asiyaas Afwerki inuu isaga baxo dalkaasi Itoobiya qallaasahana uu ka daayo gudaha wadanka Itoobiya si dowladda Itoobiya iyada istaqaana ay u wada xaajooto.
inkasta oo canfartu wadahadal iyo wadaxaajoodba lagu kari waayey haddana waxa ay jabhadda difaaca iyo xoreynta galbeedka gobolka City ay haatan doonaysaa inay canfarta tusto waxa ay tahay iyo weliba in xoog laga soo qaadan karayo deegaanada ay gacanta ku hayaan waxaana arrintaasi lagu bogaadiyey in ay sameeyaan jabhaddaasi xoreynta iyo difaaca galbeedka gobolka City kuwaasi oo la sheegay in ay canfarta doonayaan inay tusaan inay dal leeyihiin oo ay deegaanadooda dib u soo ceshanayaan canfartu markii ay aragtay inaan looga soo dabategaynin deegaanada ay gacanta ku hayaan waxa ay bilowday in ay raadiso kuwo kale oo ay ku soo darsato islamarkaana weerar joogto ah ay ku qaado dadka galbeedka gobolka City oo ay dad badan oo maati ah barakicisay kuwo badan ay laysayba halka deegaano kalena ay maalin kasta ku darsanaysay deegaanada waddankaasi Itoobiya mid kasta waxa uu wadaa dhul ballaarsi iyo waliba inuu helo dhul isaga uu leeyahay oo uu ka soo dhaco deegaanada kale arrintaasi oo aanay ku baraarugsanayn deegaanka Soomaalida iyo xukuumaddiisu waxaa loo baahan yahay in laga warhayo deegaanka Soomaalida iyo xuduudihiisa arrintaasi ayaa keenaysa in ay ciidamada xoogga gaarka ah ee Leopoldska oo haatan xoogga saaraya kooxaha argagixisada shabaabka iyo weliba xuduudka Soomaaliya iyo deegaanka Soomaalida in lagu baraarugo deegaanada kale ee Oromada iyo Canfartuba inay sameeyaan dhul ballaarsi iyo weliba inay maalin kasta weerarayaan dad Soomaaliyeed oo ku dhaqan daafaha gobolka deegaanka Soomaalida galbeedka gobolka City ayaa la weeraray canfartu ay dhul ballaarsi ka sameynaysaa halka Oromaduna ay dhinaca kale ka sameynayso dhanka Dhaamoole iyo weliba gobolka Afdheer sida xoguhu ay nagu soo gaarayaan arrimahaasi oo dhan ayaa deegaanka Soomaalida u yaala axmaradii waxay sameynaysaa dhul ballaarsi Oromada dhul ballaarsi canfarta dhul ballaarsi guud ahaan qowmiyadaha dalkaasi Itoobiya mid walba waxa uu doonayaa in deegaanka Soomaalida uu dhul ka qabsado kaasi oo lagu soo tilmaamay inay dad yar joogaan isla markaana dhulkaasi uu yahay dhul ballaaran waatahay haatan aan eegno howlgallada ay sameeyaan ciidamada danab ee kumaandooska Soomaaliya waa 5 aroornimo gawaari cabdibila ah oo ay saaran yihiin askar aad u hubaysan ayaa ku dhaqaaqay wado aan laami ahayn oo ku taala bartamaha Soomaaliya darwalka mid kamid ah gaadiidka ayaa marba marshada ama geerka bedelaya waxa inta uu dib u jaleecaya ama uu xaqiijinaya in askarta gaariga saarani ay ka daateen shaqadeenu waa in aan marka hore deegaano galno ayuu yiri taliyaha da'da yar ee askartan xilli uu eegay hareeraha wadada si uu uga digtoonaado weerar gaadmo ah ama qarax ay shabaabku la beegsadaan saddexdii bilood ee la soo dhaafay ciidamada kumaandoosta danab ee uu tababaray Mareykanka ayaa door muhiim ah ka qaatay kacdoonka ka dhanka argagixisada oo laga saaray deegaano fara badan oo ku yaala bartamaha Soomaaliya guulaha laga gaaray duulaanka ayaa rajo badan ku abuuray Soomaalida oo malaayiin kamid ah ay saameysay abaarbaan waa markii ugu horeysay muddo sanado ah oo aan dareemayo rajo intaan lama horjoogsan karo duulaankeena maadaama aan ka guuleysanay kooxdii argagixisada ahayd ee shabaabka dadka Soomaaliya ayaa kacay oo arkay in laga adkaan karo shabaab ayuu yiri Malik Cabdallah oo xildhibaan ka ah golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya door fiican ka qaatay duulaanka ka socda gobolka Hiiraan kadib 3 saac oo aan ku soconay wada Rafah kolonyo ciidanka ayaa gaaray afaafka hore ee deegaanka Bukure askarta danab ayaa ka degay gawaaridooda 3 kamid ah warbaahinta madaxa bannaan ayaa ciidamada ku wehelinaya howlgalkaasi gaarka ah ee ay fulinayeen warku si degdeg ah ayuu u faafaa ayuu yiri taliyaha waxaana kooxda argagixisada ay ogaan karaan in aan halkan ku suganahay arrintaasi oo ka dhigaysa in aan dhaqsaba aan u bilowno weerarada iyo waliba in aan halkaasi aan ka sameeyno howlgallo waxa sababta aan xilli hore u soo dhaaqnay ay tahay in aan wadada marno inta aanay ku aasin miinooyinka ayay tiri Asli Xalane oo ah sarkaal qaabilsan isku xidhka rayidka iyo militariga ana qofka kaliya ee ka tirsan danab ee loo ogolaaday in aan ka wareysano isla markaana arrimahaasi ay wax nooga sheegto danab ayaa marar fara badan ka fuliya howlgallo meel ay argagixisadu ku xoogan yihiin sida Bu'aale oo kale ayay mar ka sameeyeen howlgal halkaasi oo ay ku soo qabteen qaar kamid ah argagixisada sidoo kale waxa lagu yaqaanaa danab in ay tagaan meelaha ay ugu daran tahay ee argagixisadu ay ku badan tahay ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyaga ayaa hor socda oo hogaaminaya ciidamada howlgalkooda marka ay la wareegaan tuulada ama guud ahaan deegaankana waa ay isaga soo baxaan
ay dejiyaan ciidamada xoogga iyo weliba dadka deegaanka ee iskaashanaya balse dhacdadii ugu weyneed ee dhacday ayaa ahayd degmada Wabxo oo ay ciidamada danab iyo weliba ciidamada deegaanka iyo kuwa militarigu ay iswada garabsanayeen halkaasina ay qabteen ciidamada danab oo argagixisadii ka saaray balse markii ay ciidamada danab isaga soo baxeen halkaasi guud ahaanba argagixisadii ayaa si fudud kusoo gashay deegaankaasi Wabxo arrintaasi oo lagu eedeeyay ciidamada danab in ay sameeyeen oo ay ku khaldanaayeen loona baahna in ay joogaan arrintaasi ayaa ka dhigtay ciidamada danab kuwa awood weyn u leh argagixisaduna ay aad uga cabsato akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto wataniyo kulanti dambe nabadgelyo.